kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya roob leh oo shaqada ka ceerinaya taliyaha ku meel gaarka ah ee NISA wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur oo cadaadis ku haya taliyaha NISA amar horena ka saaray xaaladda garoonka Aadan Cadde iyo shaqada hay'adda NISA wararkii ugu dambeeyay khilaafka farmaajo iyo roob leh iyo shirka wadatashiga qaranka oo dhabar jab ku noqon doona farmaajo qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegaynaa warkeena balse marka hore saaxiibayaal u diyaar garooba qodobada hordhaca warka daawateen oo dhameystiran aynu ku bilaabanay Roble ayaa qorsheynaya shaqo ka ceerinta taliyaha ku meel gaarka ah ee NISA Yaasiin Farey Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka fakaraya inuu xil ka qaado taliyaha ku meel gaarka ah ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey sida dhanka wararka uu ogaaday Roble toos xilka uu ma qaadi karo Yaasiin Farey yeeshee wuxuu horgeyn karaa golaha wasiirada oo leh awoodda xilka qaadista Yaasiin Farey waxaa lagu tilmaamaa gacanta midig ee madaxweynihii hore ee dalkan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoona uu ra'iisul wasaaruhu tuunsan yahay inuu caqabad ku noqon karo hufnaanta doorashooyinka Soomaaliya sida muuqata ra'iisul wasaaraha ayaa qaadaya tallaabooyin dhowr ah oo lagu cadaadinayo Yaasiin Farey ka hor inta aan si toos ah xilka looga qaadin dhawaan wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa Yaasiin Farey ku amray in uu warbixin dhameystiran ka keeno sababta iyo halka uu ku xiran yahay Mukhtaar Rubo Cali oo Mansuur aseesha Yaasiin Farey ayaa waqtigii loo qabtay ku soo diray warbixintaasi markale wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa shalay Yaasiin Farey ku amray inuu dhammaan ciidanka NISA ka saaro garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho isagoo faray in ammaanka garoonka uu si buuxda u gacan geliyo ciidanka booliska wasiirka amniga ayaa hadda cadaadis weyn ku haya taliyaha hay'adda NISA waxaana la fiirinayaa in amarkan uu qaadanayo ama uu ka dhiga adeegayo haddii Yaasiin Farey ku hor yimaado amarada wasiirka amniga tani waxay ka dhigan tahay in Roble u diyaarsan xilka qaadisiisii iyo qofkii lagu bedeli lahaa intaba wasiirka amniga ayaa qoraalkiisa ku shaaciyay in go'aanka la qaatay kadib markii ay bateen cabashooyinka ay ka soo gudbiyeen hay'adaha dawladda ee ka howlgala gudaha garoonka ciidamada NISA ee ku kaca xadgudubyo isugu jira gacan qaad iyo handadaado joogto ah lehna cadeymo buuxa Yaasiin Farey waxa uu hormuud u yahay khilaafka tan dib uga soo dhex cusboonaaday ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo kadib markii uu muran xoogan hareeyay kursiga uu tirsigiisu yahay hoob 67 kaasi oo sida la sheegay Yaasiin Farey ku soo baxay bishii November ee sanadkii hore taliyaha ku meel gaarka ah ee hay'adda NISA ayaa galaabtay 7 xubnood oo kamid ahaa guddiga xalinta khilaafaadka kadib markii si aan sax ahayn ay u maareeyeen cabashadii laga keenay kursigaas ra'iisul wasaaraha ayaana 10 December shaqada ka eriyay 7 kamid ah guddigii xalinta khilaafaadka Yaasiin Farey oo sidoo kale ku magacaaban taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir iyo madaxweyne Farmaajo bishii September oo magacaabay inuu noqdo kusimaha hay'adda NISA maalmo kadib xilka qaadis uu ra'iisul ku sameeyay taliyihii hore ee hay'addaasi Yaasiin Fahad Yaasiin Xaaji Daahir sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abakar Dube golaha wasiirada ayaa taageeray dargelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda si ay inoogu dhacdo buu yiri doorasho nabdoon oo xasiloon haddii uu Roble meesha uu ka saaro Yaasiin Farey waxa uu noqonayaa ninkii saddexaad ee ugu dhawaa madaxweyne Farmaajo ee meesha ka saaro marka laga soo tago Fahad Yaasiin iyo Cabdullaahi Kulane oo soo noqday madaxii shaqaalaha hay'adda sirdoonka yeeshee hadda waxa cadaadis weyn lagu hayaa taliyaha NISA Yaasiin Farey si daaqada looga saaro waxaana maalmahan kadib saaraya amar iyo sidoo kale digniino hor leh oo la xiriirta hay'addaas iyo howlaha ay hayso lama oga hadda sida ay ku dhaqan gali doonto amarkii ahaa in hay'adda NISA ay ka soo baxdo garoonka oo hadda su'aasha ugu weyn ee hortaalla taliyaha ku meel gaarka ah ee NISA Yaasiin Farey iyo qaabka uu jawaab celiyo oo isha lagu wada hayo dhamaanba waana arrin kale oo u baahan Yaasiin Farey in ama uu ka jawaabo ama uu ka gaabsado ka hadalka arrintaasi haddii uu ka jawaabana waa uu qayro xilkiisa ayuu sii joogayaa haddii uu se ka aamusana
dan uguma jirto shaqada ayuu ku weynayaa haddana cadaadis ay ku wajahayaa bila Soomaaliya iyo dhanka xafiiska Roble labadana mid dooro ayuu ku dhex jiraa taliyihii kumeel gaarka ah ee NISA si yeeshee waxa la leeyahay Roble iyo dhankiisa uu ka dhig adeegaya oo Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa ku cadaadinaya inuu si qaadinta labada ah in garoonka NISA laga soo qaado dhamaanba ciidamada qaranka taasi oo dhabar jab ku noqon karta amniga guud ee qarankan iyo danaha guud ee Soomaaliya maadaama NISA garoonkan cadeey ka waardiyaan shakhsiyaad iyo sidoo kale ajaanib dalkan waxa ay doonaan soo galiyaan si guudna u suga amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport ee gudaha magaalada Muqdisho dhinaca kale wasiirka amniga oo si qaldan loo fahmay hadalkiisii xalay ee ahaa in garoonka NISA ka soo baxaan ayaa markan sharaxaad dheeraad ah ka bixiyay wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo xalay agaasimaha kumeel gaarka ah ee NISA Yaasiin Fare ku amray in ciidanka NISA oo ka saaro gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho ayaa faa'iido dheeraad ah ka bixiyay amarkaasi wasiirka ayaa qoraal kale oo soo saaray waxa uu ku sheegay in amarkaas uusan qusaynin ciidamada NISA ilaaliya baraha control ee laga galo garoonka balse uu kooban yahay dhar cad ka howlgasha gudaha garoonka Aadan Cadde isbeddelka la xiriira ciidamada NISA ee ka howlgala garoonka Aadan Cadde wuxuu quseeyaa oo kaliya ciidamada dhar cad ee ka howlgala gudaha garoonka diyaaradaha terminalka ma quseeyo ciidamada gacanta ku haya baraha controlada ee laga galo garoonka Aadan Cadde iyo qoraalkiisa ku yiri wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka ayaa qoraal u saaray fiidkii hore ee xalay waxa uu ku shaaciyay in go'aanka ciidanka NISA looga saarayo garoonka Aadan Cadde la qaatay kadib markii ay bateen cabashooyinka ay ka soo gudbiyeen hay'adaha dawladda ee ka howlgala gudaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho sidoo kale waxa uu sheegay wasiirku in ciidamada NISA ay ku kaceen xadgudubyo isugu jira gacan qaad iyo handadaado joogto ah kuwaas oo cadeymo loo hayo sida uu sheegay wasiirku amarka wasiirka ee lagu dalbaday in ciidanka dhar cad ee NISA laga soo saaro gudaha garoonka Aadan Cadde ayaa laga sugayaa Yaasiin Fare inuu dhaqan geliyo axadda maanta sida ku cad warqadda wasiirka amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport ayaa waxa ka howlgali jiray ciidan nabad sugid dhar cad waxayna ciidankan markii hore si toos ah u sugi jireen kaaliyihii agaasimihii hore ee NISA Cabdullaahi Kulane inta badanna waxa loo adeegsan jiray arrimo siyaasadeed iyo in dadka ka dhoofaya garoonka qofkii ay doonaan laga xanimo safarkiisa qofkii ay doonaan safarka loo fasaxo hase Yaasiin Fare ayaa markan la dul dhigay su'aal ah ka jawaabid adagna u baahan iyo in ciidankaas uu ka saaro gudaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ugu dambeyntiina shirka golaha tashiga qaranka ayaa la filayaa in Isniinta berito uu ka furmo gudaha magaalada Muqdisho kadib markii ay soo wada gaareen dhammaan madaxweynaha dowlad goboleedyada gudaha magaalada Muqdisho hase yeeshee shirka ayaa wajahaya caqabad xoogan waxaana yar fursada laga qabo in lagu meel mariyo laba qodob oo xasaasi ah kuwaas oo gadaal ay ka riixayaan ra'iisul wasaare Roble iyo dowlad goboleedyada qaarkood sida aynu xogta ku helnay qodobka koowaad ayaa ah in deegaan doorashada lagu soo koobo hal magaalo qodobkan ayaa waxa si aad u daneynaya Axmed Oobi Cali Gudlaawe oo caqabad kala haysato magaalooyinka Garbaharre iyo Beledweyne Roble ayaa markii hore ka cagajiidayay fikradan ayaa la sheegay inuu hadda taageerayo kadib markii ay isku xumaadeen Farmaajo oo aad uga soo horjeeda arrintan horeyna uga digay qodobka labaad ayaa ah in ra'iisul wasaare Roble doonayo in shirka laga soo saaro baaq ah in amniga dalka si buuxda ra'iisul wasaare Roble lagu soo wareejiyo haddii aanay taasi dhicinna aanu dalka doorasho hufan ka dhici karin Farmaajo ayaa hore Roble u wareejiyay amniga doorashada balse taasi waxa weyn ma bedelin waxaana wali hay'adaha amniga si buuxa gacanta ugu haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha ayaa rumaysan haddii ay golaha wadashiga qaranka ay qodobkan isku raacaan shuruudna uga dhigaan dhameystirka doorashada inay hogaamin karto in beesha caalamka ay isku saarto Farmaajo inuu sidaas sameeyo inkastoo ay badan tahay in Farmaajo uusan marba taasi aqbali doonin sida xogaha la helayo ay muujinayaan guud ahaan daawadayaal waa nageynta wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.